السلام عليكم كسو دواad hadda ciise waad ku mahadsantihiin doorashada inaad waqtina la qaadataan haddii ay tahay markii kuugu horeysay waxaan kaa codsanaynaa inaad nagu soo birto ma og tahay waxa qof kasta oo dunidan ku nool oo dadka kala siman yahay iyadoon laga eegayn lacagta caannimada iyo weliba raaxada ay ku jiraan waa waqtiga 24 saac ayay naga la siman yihiin balse waa inaad xasuusnaataa gadaasha guul kasta waxaa jira qof bini'aadam ah samaynaya dadaalkeeda halka ugu sarreysa maalinba maalinta ka dambaysa maantay muuqaalkan waxaan kaga hadlaynaa 5 qodob oo aad waqtigaaga ku ilaalin doontid qodobka koowaad deji ahdaaf dejinta ahdaaf waa mid muhiim u ah go'aaminta maalintaada dejinta ahdaaf waxay ku abuuri kartaa inaad yeelato bartilmaameed ku habboon hadafku wuxuu kaa caawinayaa inaad aragto sawirka weyn ee hortaada yaal iyo sidoo kale inaad 24 saac kala dhexbaxdid wax walba oo faa'iido ah qodobka labaad muhiimadda saar muhiimaadkaaga aan ula jeedno il dheer u lahow waxaad ku bixinaysid waqtigaaga tayada leh waxaa laga yaabaa inaad isweydiiso waa maxay waqtiga tayada leh hagaag halkan waxaan ula jeednaa xilliyada sida aroortii oo kale ah xilliyadan isku day inaad hal shay tusaale ahaan xoogga saartid xilliyadan faa'iidada ay leeyihiin waxaa ka mid ah waxaad ku celceliso horay ayaad ka qabanaysaa qodobka saddexaad ku bilow isbeddel yaryar jadwalkaaga uma baahnid inaad beddeshid wax walba oo noloshaada ah hal mar sida inaad subax walba xilli hore soo kacdid iyo weliba inaadan internetka ku biloobin maalintaada waxyaabaha lagu talinayo waxaa ka mid ah inaad subaxii ugu yaraan 30 daqiiqo waxaad jeceshahay ku akhriso ama xirfad aad jeceshahay ku practice garaysid waxaa laga yaabaa inaad yaraysatid 30 daqiiqo balse 30 daqiiqo maalin kaste waxay u dhigantaa 2 saac iyo 10 daqiiqo isbuuc walba waxaad 30 daqiiqo maalin walba uga shaqaysid hubaal waa ay hagaagayaan qodobka afaraad deji waqti kama dambaysa imise ayay kugu qaadanaysaa inaad ku dhammaysid shaqada aad haysid xilligee ayaad doonaysaa inaad ku gabagabaysid howlahaaga haddii aadan garanayn arrimahan way kugu adkaanaysaa inaad la socotid waqtigaaga way fududahay inaad ku qabato aadna ku samayso wax walba xilliga loogu talagalay in lagu sameeyo haddaad u dejiso waqti cayiman shaqo kasta xilligeeda qodobka shanaad qaado break ama fasax si aad wax soo saar tayo leh u samayso howlahaagan u dhammaystirto waa inaad daqiiqada fasaxa qaadataa daqiiqadahaas fasaxa ah ma ahan macnuhu inay dheeraadaan 10 ilaa 15 daqiiqo way kugu filan tahay daqiiqadahaas waxaad samayn kartaa inaad ku daawato muuqaalo ama aad ku samayso waxaad jeceshahay inaad ku wacdo waalidkaaga inaad la sheekaysato saaxiibada muhiimaddu waa inaad fasax qaadato uusan ka dheeraan 10 ilaa 15 daqiiqo ugu dambeyntii waqtigu waa hantida kaliya la hubo ee aad haysato sidaad u maarayso ayayna noloshaadu ku xiran tahay